السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا أم لبنى جنال سو دواذا جنالك markuu ugu horeysa hadee tahay subscribe hadda hore noola sii joogi jirta like iyo share ha iloobina asxaabta soo dhawaada maanta waxaan idin hayaa alaab lugaha lagu dhaqdo oo lugaha nadiifinayso marka soo dhawaada waxaan rajeynayaa inay ii jeediin marka meeshaan 4 shay aan ku haysanaa kan waxa waaye corn flour waaye ama warango qofka sidoo u yaqaano meeshaan waxa ku haysanaa sokor oo brown ah liin dhanaan intana noo taalo intana olive oil noo taasho marka soo dhawaada intaana isku darsanayna asxaabteeda lugahaaga 15 daqiiqo maalin walba si ay luga qurux badan oo soft oo baby ay kugu noqdaan intaana isku dardarsanayna corn flour-ka aad u fiican yahay wajigu u fiican yahay jirko dhan aad u nadiifiya oo qurux uga dhiga marka soo dhawaada waa isku darsanayna hadeertan corn flour-ka wax yar ka soo qaadanay wax yarna waxaan ka soo qaadanay sokorti qaado sokor ah marka waa isku qasanayna inta aan wax kale ku darin ayaga isdhex gelinayna marka asxaabta naftiina ha iloobina qof walba waa inuu gacanta isku hayaa oo dumar ah waa ina gacanta la isku hayaa qurux walba aa leedahay waxa hadaadan si dayactirin dhulka galisa ma fahanteen soo dhawaada marka hadda waxa ku darsanaynaa liin dhanaanti burtuqaal qofka heli kara liinta oranjiga oo burtuqaalka la dhahayo hadaan xasaasiyo ku ahayn liintaas aad u fiican oo ku darsan kartaa oranjiga ama burtuqaalka qofka sidoo u yaqaano qofka xasaasiyo oo burtuqaalka ku ahna liin dhanaan oo isticmaali karaa marka hadda aniga burtuqaalka ma isticmaalay liin dhanaantaas isticmaalaya soo dhawaada ahbaabi kanaalka ina sii share gareysaan ha iloobina like ina dhahdaan ha iloobina asxaabtiina la sii wadaag hada ku faa'iideen soo barobey kulay warka feedback igu soo celisha aniga waa soo barobey adinkana barobadiina aad idinka sugayaa 15 daqiiqo nafsadaada jirkaaga